السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka qaarkood waxay marar badan isku arkaan dilaac ku yimaada diirka ka sarreeya ciddiyaha faraha sida muuqaalka ay nooga muuqata waxaanay dadka qaarkood u arkaan arrin iska caadi ah waxaase jira sababo la sheegay inay arrintani ku iman karto waxyaabaha la sheegay inay arrintani ka dhalan kartana waxaa ka mid ah jidhka qofka oo noqda mid qallalan taasoo ka dhalata marka qofka uu noqdo mid aan cabbin biyaha iyo cabbitaanada kale ee muhiimka u ah jidhka arrinta labaad ee lagu sheegay inay arrintan keeni kartana waxaa ka mid ah cuntooyinka qofku uu qaato oo aan ahayn kuwo isku dheeli tiran ama haddii qofku uu joogteeyo hal cunto oo keliya ayaa iyadana lagu sheegay sabab kale oo arrintani ay ku iman karto waxa iyadana sabab kale oo saddexaad lagu sheegay haddii qaar ka mid ah faytamiinada iyo macaadinta uu jidhku u baahan yahay ay jidhka ku yaraadaan inay iman karto arrinta noocani sabab afraad ayaa iyadana lagu sheegay xasaasiyadda ka dhalata saabuunaha lagu maydho gacmaha ama haddii qofku uu taabto wax kiimika ah inay iman karto arrinta noocani sidoo kalena qaar ka mid ah xanuunada ku dhaca maqaarka ayaa keeni kara arrinta noocana haddii ay jirto dhibaato qofka ka haysata socodka dhiigga ee jidhka ayaa iyadana lagu sheegay inay iman karto arrinta noocani waxaanay gabagabadu noqonaysaa haddii arrinta noocani ay noqoto mid soo noqnoqota waxa muhiima inuu qofku la xidhiidho dhakhtar maqaarka ah